أولاً إلهي باب محله bulshada sharafta leh ka soo qayb gashay halkan mudanayaal iyo marwooyin madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda Puntland ee gobolka Cayn oo ugu horeeya maayarka gobolka gudoomiye ku-xigeenka gobolka Cayn gudoomiye hore Guuleed Maxamed Nuux rasiid ku-xigeenka arrimaha gudaha Cabdiwali Mire Abdulrahmaan Diiri Carab xildhibaankana sharafta leh ugaasha iyo waxgaradka ciidamada qalabka sida dawladda Puntland dhalinyarada iyo haweenka warbaahinta mid kasta mansabkiisa iyo mas'uuliyaddu ayaan ku salaamaya shalay waxaan ahaa wiilkiina jeceladan Cabdi Ciise laakiin labada Cabdi maanta waxa uu kala duwan gudoomiye oo raacay waxa uu raacay gudoomiye waxa xilkan waxaan u imi inaan ku shaqeeyo ee uma iman inaan ku shaqeeyo inaan ka shaqeysto mudanayaal iyo walaalayaal gudoomiye hore si wacan buu xilka u wareejiyay garowana waa ku soo ballanay iminkana waan ku ballamaynaa sida sharafta leh uu yeelana aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa Guuleed waxaan leeyahay dabcigaaga waxa ku sheego ka tahay dabada shaqeyno qof walba maan hadalka qofka siyaasadda ay tahay in la wada shaqeeyo maxaa yeelay shacabka ku nool gobolka Cayn waa dad sharaf leh karaamo leh dalkooda iyo gobolkooda naf iyo maalba u horay waxaan ballan qaadayaa inaan halka ka shaqeeyo maamulka difaaciisa iyo amnigiisa aan halka ka sii wado bulshada gobolka Caynna aan halka mar labaad ugu celiyo inaan ka shaqeysan inta xilka hayo aan ugu shaqeeyo Allah uu dalka dhigo waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta ugu sareysa Puntland ugu horeeya madaxweynaha iyo ku-xigeenku ee xilkan ay igmaday inaan ka soo bixi karo waan aaminsanahay idinkuna aad igula shaqeysaan oo aad igu ducaysaan dawladda Puntland inay gobolkan wax ka qabato dad badan oo reer Bohol ah ba aaminsan laakiin wala deefirsan yahay mushaharaadka kaliya ay dawladda Puntland bisha halkan ku bixisay $100,000 waa ka badan yahay mashaariicda humanitarianka ee halkan laga sheegay ay dawladdu wado ciida ka badan laakiin waxaan halkan aan qirayaa inaan ka cadeeyo wax dambe oo ay dawladda Puntland qabatay inaan la qarin oo aan sida tooska u soo bandhigo hadii Allah uu dalka dhigo waxaan aaminsanahay gobolkan Caynhaan iyo dawladda Puntland ee caasimadda inay isku xidhnay oo gaab badan ka jiro waxaan ballan qaadayaa inaan gobolka iyo dawladda Puntland oo gaabkaas ku jiro aan isku xidho hadii Allah uu dalka dhigo Guuleedna waxaan leeyahay mar labaad waa maasan tahay ubaddu maanta wax la wareejin waan soo koobayaa duhur baa la taagan yahay ogaashu way dambaysaa